madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socdo soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo sidoo kale noqonaya kii labaad ee muddo xileedka uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo oo haatan ku dhow muddo 4 sanadood. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono? dadka shacabka ah maxay ka filanayaan ra'iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaysa. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la filayaa in dhawaan uu ka jibo keeno doondoonkiisa ra'iisul wasaarihii labaad ee dawladda uu madaxweynaha ka yahay ay yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay. soo xilista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban ra'iisul wasaaraha. haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada Soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra'iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay. dalku wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare wadciga siyaasiga kan dhaqaalaha kan amniga wadanka la socda karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh baarlamanka maamul goboleedyada mucaaradka bulshada rayidka ah qof kastan kara oo muxuu ahay danaha wadankana maaragtay ka shaqeyn kara xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu wadanku horta u baahan yahay. ra'iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dawladda kaliya waqtigan looma baahna. qof karti badan leh, niyad wanaagsan leh, aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday dadka Soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay hadii wadanka la rabo xilligan adag inuu si nabada uga gudbo. labada arrin ee muhiimka ah ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa kamid ah qof ay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka. haddaba ra'iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo? waxa arrintaasi ka jawaabaya Cali Xaaji Warsamo oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida horeyna u soo noqday musharax madaxweyne. qiimayntayda waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra'iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcadiisa iyo magaciisa soo ceshado. wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra'iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin waqtina wada dhamaysanayaan waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan. Soomaaliya waxa ugu weyn maanta yaallaahi waxa weeye doorasho la isku waafaqsan yahay, doorasho waqtigeeda ku dhacda, doorasho noqota mid ka duwan tii dhacday 2016. waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karin qof isaga hooskiisa ah uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo muxaafidkaba ka gadmi kara. waana ra'iisul wasaaraha kale ee suurtagal tahay inuu shaqeeyo waqtiga uu haray dawladdan mandate-keedii. waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra'iisul wasaaraha soo socda waxaa kamid ah inuu noqdo ra'iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhameystiro howlo dhowr oo ay ugu horeeyaan dhameystirka heshiiskii Dhuusamareeb iyo diyaarinta doorasho la isku raacsan yahay, taasi oo ay u sii dheer tahay arrimaha la dagaalanka al-shabaab, dhameystirka dib u habeynta ciidamada, howlihii deyn cafinta ee uu ra'iisul wasaarihii hore dhexda uga tagay. waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha. waa kan Cabdulaahi Shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo. madaxweynuhu waa siyaasi, wuxuu rabi karaa ra'iisul wasaare ka shaqeynaya waxa madaxweynuhu rabo, aad u dhaga nugul, muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahan wax kale, aad ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya. marka waxa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan, dabeecadda ay ka rabaan ra'iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan ayaad moodaa inay adag tahay in la isku waafajiyo. laakiin haddii madaxweynuhu uu wadanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo
oo si nabada loo gudbo doorashada iyo xilligan adag wuxuu dooran doonaa insha Allah ra'iisul wasaaraha aan horey u soo sheegay dadka Soomaaliyeed isku duwan kara kalsooni ka heli kara baarlamaankana kalsooni ka heli kara madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay in uu soo dhiso ra'iisul wasaare isaga looga dambeeyay hadda waxa dhici karta in baarlamaankii riday ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre laga tala geliyo sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortamaan qaybtooda waa kan Cali Xaaji Warsamo oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra'iisul wasaaraha soo socda waxaan qabaa baarlamaanku door buu ku yeelanayaa maxaa yeelay waa hay'adii riday ra'iisul wasaarihii hore hadeerna laga rabo inay ra'iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso hadii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin way adkaanaysaa in ra'iisul wasaarahaasi uu gudbo ama se dawladdiisu ay gudubto taasina waxay keeni doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra'iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dawladdiisa la meel marinayo muhiim bay ila tahay in baarlamaanka loo baahan yahay laakiin baarlamaanku kaliya ma aha cid kaliya ra'iisul wasaaraha laga gadayo waxa laga gadayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxa laga gadayo maamulada waxa laga gadayo mucaaradka waxa laga gadayo beesha caalamka oo la rabo doorashada Soomaaliya inay maalgeliso beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday isla markaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristii ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa iyana ka mid ah dhinacyada la doonayay in lagu qanciyo in isbedelku ahaa muhiim keenay ra'iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii ka sii anba qaadi kara haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka maxaa laga rabaa ra'iisul wasaaraha soo socda waxaan su'aashaasi weydiiyay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada beesha caalamku way ka yara booday magaranaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra'iisul wasaare Khayre oo maana cajibinin si markaas arinta loo bogsiyo way ra'iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socdo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dawladii Xasan Khayre iyo beesha caalamka waa inuu noqdaa waa inuu qof cusub noqonin waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan in uu sii wadayo wada hadaladii ka socday Dhuusamareeb oo waliba umur dal ka dhigayo waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan in doorashada waqtigeedii lagu qabanayo isla markaas waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan beesha caalamku inuu xoojinayo xiriirka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleed marka ay dhacdo xukuumadda jirta waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 30 cisho ah ku soo magacaabo cidii qaban lahayd xilkaasi waxa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan waxa muqdisho habeenadan ka socdo ololayaal siyaasadeed waxaana moodaa in la ilaaway dawladii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay yaa la magacaabi doonaa madaxweyne Farmaajo waxa looga fadhiyaa inuu keeno ra'iisul wasaare Soomaalidu u baahan tahay isagana doonistiisa ku haboon isla markaana beesha caalamka u cuntami kara oo la shaqeyn kara mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi